والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الله سبحانه وتعالى أيام محل أولا وأخيرا. halkan waxaan ugu bushaareynaya bulshadayda qiimaha leh meel walba ay iga daawan doonto inaan mowduucyo qiimo leh aan soo gelin doono bartayda aan Facebook aan ku leeyahay Dr. Mucaad Show. sidoo kale maanta mowduuca aan ugu horeysiin doono mowduucyada ugu qiimaha badan aan soo qaadan doono aan ugu dhigay salka aan ugu dhigayo ama barbilow aan ugu dhigi doono insha Allah waxa kamid ah xanuunkan coronavirus ama COVID-19 ka loo yaqaano. xanuunkan coronavirus waa xanuun asal ahaantiisa ka yimi ilmaaragtiyada viruska. xanuunkani waxa uu kaga duwan yahay xanuunadii hore ee bini'aadamku haleeli jiray. waa xanuun haleela habdhiska ama jirkeena guud ahaanba. meelaha uu haleelo waxa kamid ah number 1 sanbabada, number 2 unugyada jirka ama cellska. guud ahaan jirka qofka wuxuu dareemaa guud ahaan jirka oo qofku dareemo xanuun jireed. sidoo kale wadnaha iyo kaliyaha iyo inta wixii la mid ah. qofka xanuunkan qaba astaamaha lagu garto waxa kamid ah qufac qalalan, xumad saa'id ah, neefsashada oo qofka ku adkaata, muruqyo xanuun, iyo qofka yabaha uu xanuunkani uu ku faafo waxa kamid ah taabashada qofka xanuunkan qaba, neefsashada qofka xanuunkan qaba, neefsashada qofka xanuunkan qaba uu kugu neefsado. sidoo kale qofka xanuunkan qaba meel uu fadhiistay haddii aad taabato ama aad fadhiisato si yar ayaad xanuunkii markaasi aad ku qaadi kartaa. lagaga hortagi karo ama preventionka lagaga hortagi karo waxaa kamid ah la joogteeyo ama qofka bini'aadanka uu joogteeyo markaasi nadaafada jirkiisa, inuu marka uu gurigiisa uu ka soo baxo uu soo weysan qaato oo markaasi meel walba uu markaasi uu muraad u leeyahay uu isagoo weysan qaba markaasi uu maro. sidoo kale waa inuu markaasi fariisa uu meedha ama uu falxashaa. haddii uu markaasi uu hindhiso weynaanu markaasi gacmihiisa aanu sanka markaasi aanu taabsin karin. ugu dambeyn waxaan talo aan siin lahaa bini'aadamka ama qof kasta oo daawanaya in si aad ah loo kariyo hilibka xoolaha sida hilibka geela, hilibka